وبلن علي عبد الرحمن دينيا مركن اغنو قف اسلام اتهي waxaad qadarinaysaa horta hooyo marka ka timaado waxaad qadarinaysaa qofkan dumarka ama insaaniyada kugu laabaneed u sameyn karto insaaniyada ugu yar aad u sameyn karto qof bili aadana kaba soo kow inoogu darda diinteeni hooya meeshii timiday sodohba ka imo hooya timiday waxa timida hadana dhaqankeeni Soomaaliga inagu eegin dhaqanadeena Soomaaliyeed inagu eegin waxa ku timiday sodoh war kalimadan sodoh yaa la khalad fahmin hablo kelmadda sodohina khalad fahmin sodoh waa hooyo ninkanaad jeclaatay de hooyo jecelo ifka ku keentay baa jirta yaa keenay ifka waa hooyadii sanad nacaysid baa keentay ninkanaad iska jeclaatay cidlada ka soo jeclaatay soo kaxaysatay ka mas'uulka ah qof baa ka mas'uulaha oo noloshiisa ka mas'uulaha oo hadduu xanuunsado u fikirayay oo hadduu cilmi haddii doorsan meel u gaaray ama meeshan adiga iyo munaasabadan uu ku soo saaray keentay oo soo istaajisay kow taa ka fikir logic aynu u fikirno talabaad leedahay yani option hayga qaadato inuu hooyadii ogolaanshaha hayga qaadato inay gurigeyga timaado that's wrong sababta oo ah hooyada markay imanayso guriga hooyada isaga kuma tiraado war hooyada baa imanaysa ama walaashii baa imanaysa guriga madu ogoshahay kuma tiraadid sababta aad u weydii sababta uu ku weydiinaya maxay tahay hooyadaaba imanaysa aniga weydii aniga ka hor inta hooyada iman maxay tahay sababta ku xidhaysa waayo hooyadaaba kuma xidhin isbarbadhig wali labada qof ku sinaadaan